maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dib u dhigtay dacwadda loo haysto wariye Cabdicasiis Gurbiye oo ka tirsan idaacadda Goobjoog kaasi oo ku eedeysan qoraal uu boggiisa Facebook ku daabacay. Wariyaha ayaa maanta la soo taagay maxkamadda gobolka Banaadir waxaana qareenada u doodayay wariyaha ay sheegeen in ay sameeyeen is-hor istaag sharciga ku saabsan dacwadda loo haysto wariye Cabdicasiis Gurbiye kadib markii ay caddeeyeen in aan loo adeegsan karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. mid la xiriira arinta saxaafadda oo ah maadaama Cabdicasiis uu yahay wariye ka shaqeeyo saxaafad in loo celiyo xeerka saxaafadda Soomaaliyeed oo dhaqangal ah qodobkiisa 29 ayaana sheegaya habraaca loo marayo eedaynta wariyaha. qodobka kale ee afraad ee shirtaaga wuxuu ahaa xaashida eedda ma waafaqsanayn qodobka 71 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. dhageysiga koobaad markii uu ka jawaabay xeeralaaliyaha wuxuu uga jawaabi lahaa la aheed oo sheegay kadib maxkamaddu waxay halka ku soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda maalintii koobaad oo ay qaraar ka soo saari doonto hadduu Ilaahay idmo waana sugaynaa qaraarkaas. waa maasantii waxaan sameynay isturtaagyo sharci ah oo waafaqsan qodobka 105 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo dhammaantood la xiriiro sharci ahaanshaha eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo oogay. markii ay isturtaaga sameeyeen xafiiska xeerlaaliyaha waa ka jawaabay waxay la ahaaday ayuu sheegay aragtidiisu ka dhibtay kadib markii dood dheer kadib maxkamaddu waxay go'aamisay in arintaas ayadu go'aan ka soo gaari doonto. waxaan sugaynaa maxkamaddan go'aan ka sugaynaa ku saabsan eedda wariyaha loo haysto in dacwadeeda la sii wadi karo iyo inaan la sii wadi karin. dhinaca kale dooda qareenada waxaa soo dhaweeyay madaxda ururada warbaahinta Cabdalla Muumin iyo Maxamed Ibraahim Macalimow oo maxkamadda gobolka Banaadir wariyaasha kula hadlay. waxaan saaka ku faraxsanahay in la qareenadeena ay challenge gareeyeen oo ay hor istaageen dacwadda oo ayna ku dhaliileen maxkamaddu inaysan awood u lahayn inay gasho eedan iyo dacwadahan ay gasho. waxaan meeshaas rabaa marka inaan ku daro yaanan la wareerinin dacwadda ka dhanka Cabdicasiis Gurbiye. eedaha waxay ka socdaan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. isaga ayaa soo amraaya xeerlaaliyaha guud ee qaranka inuu eedahan Cabdicasiis Gurbiye uu la taagan yahay ay si wadan oo ay riixaan. iyaga ayaa dhahaya hal la wado eedda iyo dacwadaha hal la wado. waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan eedahan joojiyaan ayaan ugu baaqaynaa. waxaan codsanaynaa in si degdeg Cabdicasiis Gurbiye loo fasaxo. waa maasantiin rabnaa inaan taageerno go'aanka ay isku hor istaageen objectionka ay hor dhigeen maxkamadda qareenada kale ah Daahir Maxamed Cali Axmed Cabdiraxmaan Diiriye iyo Mawlid Mataan Salaad. saddexdaasi qareen waxay si sharci ah u sheegeen inay dacwaddan aan rasmi ahayn oo aan la gali karin. taasaan taageersanahay sababtoo ah kuma qotonto oo waxay taabanaysaa xaq dastuuri ah. waxaa sidoo kale aan aad uga xunnahay qodobada la soo qaatay ee 328 iyo 269 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed inaan lagu qaadi karin wariye sababtoo ah horay madaxweynaha Soomaaliya sidaad ogtihiin 3 bishii May ayuu wuxuu soo saaray inaan lagu xukumi karin wariye xeer ciqaabeed. madaxweynaha soo saaray 3 May haddaan ka soo tagnay. marka waxaa maanta nasiib darro ah in qareenka xiraalinta ka socday ama abukaataha Yaxye Maxamuud Saciid uu cuskanayay qodobo oo kamid ah qodobadaas horay outdated ku 14 bishii Abriil Cabdicasiis Gurbiye waxaa looga yeeray saldhigga degmada Hodan waana la xiray 4 maalmood ayuuna xirnaa kadib markii uu dhaleeceeyay dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada Soomaaliya uu ku dhaliilay qaabka ay ula tacaashay xanuunka COVID-19 waxaana wariyaha loo haystaa qoraal uu boggiisa Facebook ku soo daabacay. Cabbaas Xuseen Muuse